qofka kale qofkan kale waxa u bixinayna Cusmaan wuxuu yiri xaajiyadeeda waan ogahay in ay ku dhalanin midabka ay leedahay markaan guursaday kadib baan ogaaday in ay tahay dumarka is cadeeyo aniga ahaan ha is cadeysa maba xume hadda waxay bilaaday in udgoonkeeda uu isbedelo oo keemika ay ka soo urto sida xaaskeyga ugu sheegay taas waan garan la'ahay hadee midabkeeda cadahay ama ay madowdahay aniga waan ku rabaa laakiin udgoonka waa u dulqaadan la'ahay midda kale waxaan ka baqayaa in ayada nafsadeeda hadhoodii halis ay gasho bacdan iyo waxaan isku dardaray ay marsanayso abaayo ila tali walaalow gacali walaahi aniga taas tala aan kaasi kara haba yaraatee ma jirto because problemka hadda jiro waxay tahay doqon iyo habeenaa madow serious loo qaatay horta waxaa soo ogaaday sheekadaas inaan wax ka jirin maamaha jirto ma aha maamaha dadka is cadeeyay ay alifteen waaye waan igu soo qabtay taas meel ii dhig taas hadii laga soo gudbo wixii sida hore ma aha waagi hore dadka markay rabaan inay midabka iska bedelaan oo uqdad ay gasho insecurity waa dareemi karaa insecurity qofba meel uu ka gali karaa qof wuxuu ka gali karaa dhirarka qof cayilka qof indhigiisa qof lugihiisa uqdad iyo insecurity ma jirto ma ku dhahayo oo kalsooni buuxdo qof kasta qabaa ma ku dhahayo anaga dhan meel aad jiro aan rabi lahayn in aan iska bedelno dadka marka awal way qarsan jireen midabka markay rabaan inay iska bedelaan hadda laakiin wixii waxay noqotay normal TikTok gale 100 hablooda arkaysa oo promote gareenayo oo dhahay kan marso kan yeel doqoni habeena madow gloves xiro sunglasses xiro kan xiro wixii normal oo noqday soo hadda la taliso xaaskaaga aad tiraahdid hey waxaan kansar ku keenay doonaan waxaan long term dhibaato oo ma aragtay oo jirka ay ku keeni kartaa oo qarash badana ka galay udgoonkaagi wuu isbedelay dadka way dareemayaan in as cadeyso cause dadka qaar is cadeeyo waxay aaminsan yihiin in la fahmeynin but please hal talaan siina tan inaan ku taliyo xataa qalad ay u tahay laakiin abaa kareenka wajigaaga marsateed ma ku haboon inta inaa marsateed cause inta is harder than enter wax kala fujiyo adag raaso because how are you light here intan qof kale marka saan tiraadid waxa lagu moodaa qof kale inuu rabo inuu ku afdoobto like this and this kala do my fartoon waxaan ku talisan maaha way qaldantay waa ka gudbeynaa anigu marka taladeedu waxay tahay udgoonkeeda si wanaagsan ugu sheeg waxa tiraada caafimaadkaaga waxaan uma roono anigu kama helo dooqeyga ma aha waxaan inaa samaysid maadaama reer isla samaysanoono oo partners in crime nahnay hal qof nahnay walaalay ka caliso dib ugu noqo kalsoonidaadan dhisa I love you I need you I want you just the way you are maybe dhiirigelintaas inay ka joojiso ani ahaan fartoon waxaa rabaa walaalaha idaawado gabdhaha idaawado inaan dhaho midabkiina is beautiful sidaa tahay qof baa dooqiisa ku tahay cadaantan lagu sheegayo hadaa u dhalatay alxamdulillah hadaa u dhalanina wax ka maqan ma aha waxaan waa fashion maanta waxa socoto gabar bari weyn iyo xabad weyn tomorrow waxa laga yaabaa inay socoto gabar dhax yar oo bari iyo xabad lahayn so adi markasta ma fashion ka la soconay no you have to be unique you have to be you another heblaayo ma jireyso fartuun kale ma jirto xariimo kalena ma jireyso you are you qof unique oo ilaahay sameeyaa tahay so I would suggest kalsoonida in la dhiirigeliyo qofkan dhageysta waxay tiri aniga gabdho badan baa saaxiibo la ahay gabdho waa cadow gabdho lama aamini karo naagna saaxiib ma gasho markasta aan gabdhahan guryahooda tago waxaan isku dayaa in aan masuul ka qaado ayagoo si xun u eg ama qaawan ama xijaab xirneen ama ayagoo daruuf ee ka muuqato sida hadhoodi u isticmaalo hadee dhanka qaldan iga soo aadaan ma rabo aniga inay naag wax igu hayso waxaan jeclahay laakiin naag inaan wax ku haayo saaxiibahaygo dhan waxaan ka hayaa masuuro ama qaawan yihiin ama ay fadara sameynayaan ama wax habooneen ay ku dhex jiraan confession-kaygu waa kaas la bilaa talaa godkeenu biyo noogu soo galmaystiraadeen awal waxay eed wiilasha iska ilaaliya nimanka iska ilaalina hooy ninka iska ilaali naahoy FaceTime hagalan adooda asturneyn naaheed yaa cod laga duubin adoo faqsi sameynaysid naahoy adoo qaawan qofa u dirin naahoy wajigahay alaabta dirin aad gabdhaha lagula tiri jiray hadda talada waxay noqonaysaa naahoy ta ku soo gargaraacdo saaxiibtaada iska ilaali yaa faar kugu qabanin walaal
dumarka waa silacsan yihiin, we're in trouble, we're actually in trouble. Abayo, you're actually sick, waa jiran tahay, ma fiyoowid. haddii noloshaada dhan aad ku jirtid gabadhan wax ka qaad, wax ka duub, hadhoodii hadday kugu xumaatay isticmaal, you're just showing, waxay tusaysaa inaad adiga tahay qof xun oo xumaata badan aad samaysid, aad rabin xumaatadaada hadhoodii adiga in lagugu qabto oo adiga hadhoodii wax lagaa duubo. So waxaas dhowsaa collect garay tii wax kaa duubta hadhoodii blackmail garay camal ku isticmaal. Ba ani waxaa ku dhihi lahaa dhaqankaaga xun adiga jooji, ummadda kaleeta ha kaa noolaato, adiga faarta iska ilaali. ummad kaleeta faar ha ka raadinne, taadaada ka adkoow, maradaada ka adkoow, wasaqdaada ka adkoow. Friend ma gashid, saaxiib naag saaxiib ma gasho, naagaha dhaho aadulli ah. energy-gaasaa dadka gelinaysid, walaalay meelo kala geli, investigator noqo ama CCTV camerada magaalada Ingiriiska ku xiran ma aragtay oo waxyaalaha duuduubo midaas camal iska dhigo, meelahaas report garay, like whistleblowing, you know, wax qalad markay aragto tuug wax dhacayo jidadka saas attention-kaaga ha joogo, booliisku u report garay, taa shaqo ka dhigo, ummadda kale shaqaha ka dhiganin. Anywho, intaa kusoo gabagabeynaa